in ka badan 60 qoys oo Danyara ayaa lacag loogu qaybiyay gudaha magaalada Lascanod. Munaasabad kooban oo lagu qabtay masjid jaamaca weyn ee magaalada Lascanod ayaa lacag lagu gudoonsiyay qoysas isugu jira Danyar iyo dad xanuunsan. waxaana lacagahaas gudoonsiyay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo qayb ka ah ololaha Kaalmee Kuwan. ugu horeyn wariye samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa ka warbixiyay lacagahan iyo meelaha ay ka yimaadeen. maanta waxaanu halkan ku qaybinaynaa lacag aanu siinayno 60 qoys oo Danyara oo aanu qoyskiiba siinayno $50. dadkan aanu soo xulay ee Danyarta ah ee duruufaha kala duwan ay haystaan waxaanu kaashanay dadka ka warhaya dadka jilicsan waxaanu adeegsanay dadka culimada ah waxaanu adeegsanay sidoo kale warbaahinta waanu u dirnay oo iyadu badanaba ka warhaysa oo loo yimaado waxaanu soo xula dadkii jilicsana waxayna noqdeen xaaladaha halkan jooga insha Allah waxa weeye intii aanu siinay kaararka waxaanu siinaynaa qof kasta $50 maanta lacagta waxa qaybinaya ololaha Kaalmee Kuwan oo ku booriyay inta ladan inay soo kaalmayso inta jilicsan lacagtanina waxay naga soo gaadhay dadyowga aan xusi doono magacyadooda soo socda lacagtaas oo dabadaha laga soo ururiyay lacagta koobaad oo ah 1500 waxa noo soo diray laga soo ururiyay bog Facebook ah oo la yiraahdo diintu waa nasteexo marka waxa weeye waxaan la soo xidhay walaal la yiraahdo asad adoonkii alle ayaa Facebook ugu qoran waxa bogga aan ku haynaa lacag gaadhaysa $1500 Denmark lacag laga soo diray oo 700 oo ururisa oo laga soo diray oo naga soo gaadhay oo una gudoonsiyay nin la yiraahdo Ahmed Abdullahi Yusuf lacagtaas oo ka soo qaaday nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Teelow lacagta waxa laga soo ururiyay magaalada Arhus gaar ahaan xaafadda Fruitland ayaa laga soo ururiyay lacagta u dambaysa oo la sheegay in aan la xusin cidda soo dirtay aan la xusin ayaa waxa weeye nin Soomaaliya ayaa wuxuu ka soo qaaday nin kale oo laba nin oo kale oo ay meel ka wada shaqeeyaan lacagtuna waa $600 caaqil Danyara iyo qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyay lacagahan ayaa u mahad celiyay ololaha Kaalmee Kuwan deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadka masaakiinta ee ku dhaqan magaalada Lascanod. saaka waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad leh Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ah madaxa ololaha Kaalmee Kuwan waana markii ugu horeysay ee ololaha Kaalmee Kuwan uu soo gaarsiiyay magaalada madaxda gobolka Sool ee Lascanod waxaanuna ka codsanaynaa kana rajaynaynaa inuu san noqon tii ugu horeysay gobolkani duruufo abaar oo dhibaato fara badan baa ka dhacay baahidiisuna way fara badan tahay dhaqaalihiisuna wuu yiri dadkiisa dhiban ee masaakiintuna aad bay u badan yihiin waxaanu adiga kugu boorinaynaa taariikhna kuugu haynaa waxqabadka samafalka ee ololaha Kaalmee Kuwan ee aad noo keentay halkan waxaan uga mahad celinaynaa dadkii walaalaha iyaga islaamka ee deeqdan soo gaarsiiyay iyo cidii kale oo mas'uulka ahayd nooga soo qaaday ayaan u mahad celinaynaa Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Lascanod.